waxaad ka warhaysaan xilli doorasheedkii baarlamaanka Soomaaliya ee 4 sano la soo dhaafay wuxuu ku ekaa 27 December shalay oo ahayd 28 December waxay ahayd dalku inuu leeyahay oo la dhaariyo baarlamaan cusub ma suuro gelin sababtu waxa ay tahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo mashruucii doorashada loo baahnaa Soomaaliya in lagu hago ku fashilmay inay keenaan waqtiga loogu tala galana qabtaan waxaan ka warhaynaa in heshiis doorasho la gaaray heshiiska doorasho waxa la isku haystaa 3 qodob oo muhiim ah 3 qodob caqabadaha ugu waaweyn waxa ku ah maamulka madaxweynaha oo horkacayo qodobka koowaad waa guddiga doorashooyinka oo laga soo buuxay xubno bulsho rayida xubno shaqaale rayidaan ka wada iyo xubno hay'adda nabad sugidda aad iyo aad loogu tilmaamay murashaxiinta iyo dawlad goboleedyada qaar ka mid ah waxay codsadeen in guddiyadaas arrintooda wax laga bedelo laakiin maamulka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ilaa hadda ku adkaysanay qodobka labaad ee la isku haystana waxay tahay qodobka ku saabsan gado maamulka doorashooyinka waxaa loo dhaadhiciyey heer dawlad goboleedka Jubbaland oo ka warhaysana kama taliso magaalooyinka hoos yimaada gobolka gado intooda badan waxaa gacanta ku dhigay ciidamo iyo dadka amar qaata madaxweyne farmaajo marka maadaama heshiiska doorasho lagu gaaray in dawlad goboleedku uu ka arrimiyo arrimaha doorashooyinka ee dawlad goboleedku qabsoomayo waxa issue muhiim ah arrinta dawlad goboleedka Jubbaland ee gaar ahaan maamulka gado ayadoo uu madaxweynuhu caqabad weyn oo hortaagan u yahay danaha uu ka leeyahayna qof walba ay fahmi karto qodobka saddexaadna waxa weeye doorashooyinka iyo guddiyada heer Somaliland oo maamulka ugu sareeyay gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi ay u diidan tahay dawladdu oo madaxweynuhu uu hogaamiyo haddaba ayadoo intaas ay dhacday waxa ka warhaysaan in dalkii wax doorasho oo ka socota aan la arag ififaalihii doorashadana xataa wada hadalkeedii inuu istaag oo hadda dadkii Soomaalida ah intoodii mucaaradka u badnaay iyo int kale oo taageersan ay garow isaga wareysanayaan ayay dalka dawladina inteeda badneed halkan joogto oo aysan diyaar u ahayn in dadka la hadasho waxaan madaxweynaha iyo ugu baaqayaa inta la shaqeysa wadanka doorashadiisa madaxweynaha mandate-ka la siiyay wuxuu ku eegyahay 8 Febraayo haddii aysan muuqanin inuu u socdo sasaan doorasho sida uu hadda muuqatana waqtigiisa uu qaadanayo ku qaadanaya caburin boob iyo inuu rabo doorashada inuu boobo inay u muuqan doonto inaan laga yeeli doonin waxaan rabaa inaan arrintaas ku daroon raaciyo magaalada Muqdisho bariyahan dhalinyaro badan oo isyara abaabushay oo ayaga danahooda u codsanaya doorasho in la qabto mudaharaadaya waxaan arkaynaa dawladdu inay uga jawaabayso xabado waxaan marka hore ciidamada ka codsanaynaa inay shaqadooda ku ekaadaan qodobka labaad ee ku saabsan maalin dhaweed ninkii gabdhaha ku mudaharaadaya zona K bastoolada ku riday waxaan ciidamada qalabka sida maxkamadda ciidamada qalabka sida ka codsanaynaa in cadaaladda la horkeeno ninkaas ummadda Soomaaliyeed oo dhan sawirkiisa aragtay inuu gabdho mudaharaadaya oo dhalinyaro ah oo wax colaada iyo wax huba oo ka muuqda aan la arag uu bastoolad ku rido magaalada dhexdeeda wax la aqbali kara ma cidna xaq dastuuriga qof laga warsanayo ma jirto waa xaq dastuuriga in la wareysto inay dadku mudaharaadaan inay isu tagaan xaqooda dastuuriga waxaan marka la ku celinayaa gabdhahaas iyo cid alaale cid kale oo la mid ah oo u soo istaagay runtii inay raayigooda cabiraan inaysan marnaba la gambanin nidaamka maaragtay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hogaamiyo ee isku daya inuu dadka caburiyana waxaan uga digaynaa waqtigiisii waxa ka hartay wax 40 maalmood ka yar hadda koorna waa sheegay haddana waa ku celinayaa waxa roon reconciliation iyo walaalayaal inuu arrinta ku dhameystay doorasho la boobana madaxweyne kuma soo laaban kartid dad la caburiyana kuma joogi kartid kursiga waxaan codsanaynaa in dadka Soomaaliyeed ay kursigu kala dhaxeeyo haday ahaan lahaayeen stakeholders dadka la yiraahdo saamilayda siyaasadeed ama dawlad goboleedyada inaad miiska wada hadalka mar kale ku laabato xisaabtii hore aad iyo aad bay u khaldantay waxaan ka waraynaa hadda maanta in guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ay samaysatay dawladdu uu maanta mar kale dib u dhigay doorashooyinka arrintaasina hore bay noogu cadeed doorashooyin uu qaban karaa guddigaas been abuurka ay ma jiro waa in guddi heshiis lagu yahay la helaa haddii la yiraahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin way xildhibaan muddada xildhibaanada waqtigooda waa dhamaaday waxaana la soconaa dhikaaro muddo hal sano inay sii shaqeeyaan in loo qeybiyey maxaa kala socota arrintaas aniga shalay baan ka yimid cadaado wax ay dhikaaraha oo la bedelana weli xildhibaanadu iima sheegin
laakiin dee arrintaas waa arrin iska sharci darro ah qof walbana waa og yahay baarlamaanka muddaxileedkiisii waa dhammaaday waa in baarlamaan cusub la helaa dabcan ku simid waa leeyahay oo baarlamaanku inuu sii joogayo hadda waa caddahay oo maadaama dee dawladdu ka shaqaynay laakiin eedda baarlamaanku iskama leh annagu doorasho ma qabanqaabin karno cidda qabanqaabin laheed oo doorashada laga rabay waa maamulka iyo xukuumadda waxaan u sheegaynaa oo dee taas wehelisa baarlamaanka madaxweynaha mar horaan marar badan ka hadlay dastuurka iyo ixtiraam darrada u hayo maalin waxaa ka waraysaan madaxweynuhu inuu dastuurka u laaday baarlamaanka soo socda xaqaasu madaxweynaha ma lahayn madaxweynuhu wuxuu lahaa marka koowaad in qodobka 138 sida uu qorayo in marka hore baarlamaanku ansixiyo in uu ka gaari waayey in dastuurka la ansixiyo oo uu baarlamaanku sharci ka dhigo kadibna madaxweynuhu saxiixo madaxweynuhu asaga kaligiis ka qaato saxiixday maalin dhaweed sidaad arkayseen waana u sheegnay runtii